aan baaq ka diro aafo degmada noqoshay haddii aan la maarayn oo aan si adag xukuumadda iyo shacabka aan dhinac looga soo wada jeesan aan laga shaqayn karayn degmaduna aanay ku sii socon karaynin kuna sii degmoobayn waxa weeye waa aafada dhulka degmada waxaan samaynay nidaamka sirfayga ee Tombalanka waxaanu ka bixinay wadooyin Tombalankaas alxamdulillah uu noo hagaagay dadweynuhu wuxuu isticmaalay arrin aan macquul ahayn ayaa dad fara badan may wada isticmaalaan laakiin dad kamid ah ayaa isticmaalay qof kasta wuxuu dhagax buu meel geliyay ood yarna meel buu ka taagay dabeetana wuxuu ilaa buurta iyo buurta inta u dhaxaysa aniga leh arrinkaasina arrin sax maaha arrin shariicada islaamka ku sax maaha arrin dawladnimada ku sax maaha arrin wada lahaanshaha dhulka ku sax maaha waxaan baaq u dirayaa dhammaan dadweynaha degmada Noqoshay waxaan ogsiinayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo laga bilaabo gobolka Togdheer si runtii dhulka qof oran kara dhul banaan oo aan sharci u haysan oo aan leeyahay ayaa jira aqbalmayno dhulka Ilaahay baa leh sifa lagu mulkiyaa culimada inoo cadeysay waa la inagu celceliyay qofku ama tacab iyo ansaaru meel tacab u gashaday ayay shariicada islaamka uga sheegay inuu wax ku mulkiyo dawladdiisana uu la kaashaday oo uu kaga qaatay sharciyada ama sharci markaa maamul uu ka qaatay oo loo cabiro leelinta saad leedahay dadka kale leedahay oo waliba shardiyaysan inuu wax ka qabto ayaa lagu mulkiyaa laakiin dhagax baan halka geliyay ilaa iyo dhagaxaana aniga leh oo magaalada dhanba 10 qof yeelato aqbali mayno arrinka imika waxay geeyay inaan ka hadlo marka dan guud la damcayn meel laga dhisaba qof baa oranaya aniga leh waa banaan jilba baa ku yaala xoolaha daaqa saxma waxaan leenahay qof dhul bilaa sharciya yeelanaya ma jiro maanta laga bilaabo insha Allah bil Ramadaan baynu joognaa 10kii ugu dambeeyay baynu joognaa bisha Ramadaan maalintii dhamaatana talaabaanu ka qaadaynaa wax laana iyo wax dhagaxa oo dambe oo cid wax ku mulkiyi doonta ma jirto qofkii doonaya inuu mulki yeesho waa dimanaysa dhulku ugu filan oo adeegta lagu siinaya laakiin ma dhici doonto inaad taa buurta ilaa buurta hoobta ilaa dhafaruurta aniga dib u shaqayn mayso kuna talagala isna wada gaarsiiya insha Allah xukuumaduna dalka iyada gacanta ku haysa iyadaana xukunta waxaanu fulinaynaa dekreetada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray ee deegaamaynta cusub waana fulinay deegaan cusub oo kala la yeegleelay ma jiro laakiin magaaladii baa si غير sharciya loo balaariyay oo nin walba yiraahdo anigu halka geedkaas aan leeyahay